Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta gudoomiyay shirka tubta guud ee maamulka gobolka Banaadir oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar ka oo diiradda lagu saaray dardargelinta qorshaha adkeynta amniga iyo sare u qaadista bilicda caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa ka qaybgalayaasha shirka la wadaagay waxyaabo uu ku soo arkay magaalada intii uu ku guda jiray kormeerka ugu kurgalayay heerka uu gaarsiisan yahay amniga iyo nadaafadda degmooyinka gobolka Banaadir. Waxa uu faray dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka in looga baahan yahay in xil gaar ah iska saaraan bilicda iyo amniga degmooyinka ay maamulaan. Kulanku ay goobjoog ka ahaayeen taliyayaasha ciidamada xoogga, booliiska, asluubta, gudoonka maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaasha maamulka gobolka Banaadir ayaa si qoto dheer looga hadlay in dhammaan dhinacyada ay iska kaashadaan sidii amniga caasimadda loo gaarsiin lahaa heerka ugu wanaagsan si looga hortago falka guraacan ee maleeshiyaadka arxanka daran al-shabaab ay la beegsanayaan bulshada Soomaaliyeed iyo in caasimadda bilicda sare loo qaado si bulshada caasimadda ay ugu noolaadaan magaalo qurxan oo nabdoon. maanta shirkeeni tubta gobolka Banaadir oo maalinta Arbacada ah waxaan nagala soo qayb galay wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo runtii aan tusnay sida gobolku ugu diyaar garoobay qorshayaasha 2019-2020 ee lagu horumarinayo caasimadda. waxaan kaloo warbixin ka siinay xaaladda guud barnaamijkan tubaha sida uu samaysan yahay iyo horumarada iyo mashaariicda ka socda gobolka Banaadir. runtii waxaan ku faraxsanahay in ra'iisul wasaaruhu nagu dhiirigeliyay isla markaana uu noo muujiyay sida dowladda federaalku mar walba diyaar ugu tahay sidii caasimadan loo horumarin lahaa. waxaan kaloo shirka uga hadalnay arrimaha nadaafadda sidii bilicda iyo magaaladan dib u celinteeda loo dardargelin lahaa, isla markaana aan wadno qorsho isla xilqaan oo aan rabno degmooyinka iyo shacabka ayagoo iskaashanaya aan magaaladan u istaagno sidii lagu horumarin lahaa bilicdeedan lagu soo celin lahaa. waxaan kaloo iyadana istusinay howlaha muhiimka ee hor yaalla ay ka mid yihiin amniga oo maalmahanba habeen iyo maalinba ka shaqaynaynay sidii shacabka Soomaaliyeed loo sugi lahaa amnigooda, loo badbaadin lahaa, looga hortagi lahaa khataraha. waxaan ku faraxsanahay hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka iyo degmooyinka iyo shacabkaba in tallaabooyin fara badan la qaaday, horumar ballaaran laga sameeyey, welina aan u taagannahay in la sii dhuujiyo. intaas waxaa sii dheer oo aan iyagana aada uga hadalnay sidii aan maalmaha ciidda nagu soo food leh loogu diyaar garoobi lahaa, xaafadaha, ganacsatada, shacabka uga codsanay inay bilicdaas nagala qayb qaataan, hadday noqoto nalal guryaha lagu hortooda, ganacsiga hortiisa, iyo si kasta oo magaaladan bilicdeedii loo soo celin karo. waxaa kaloo jiri doona olole baaxad leh. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer shaqo ku tagay bangiga dhexe ee Soomaaliya ee dekedda Muqdisho si sare loogu qaaday isla xisaabtanka iyo daafurnaanta. wuxuuna ku booriyay maamulada kala duwan ee dekedda iyo bangiga dhexe inay laban shaqooyinka ay bulshada u hayaan isla markaana ay u diyaar garoobaan markasta isla xisaabtan.